مينو واديدنا وانا كسور جدنا واديدنا وانا كسور جدنا دمان دتك سومالي دا دمان دتك سومالي دا maanta ka soo qayb galay barnaamijkan la isugu yimid magaalada Danxaaq ee wadanka Holland marka hore waxaan ku muujinaynaa shucuurteena Soomaalinimo ee ku aadan dhibaatadii foosha xumeyd ee ka dhacday wadanka South Africa ee loo geystay ninkii Soomaaliga ahaa Tony Mayno dilka Soomaalida lagu hayo South Africa laga joojiyo Tony Mayno walaalayaal arintu intaas kaliya ma ahayn waxaan la soconaa in Soomaalida wadanka South Africa degan muddo dheer dhibaatada lagu hayay waxa kale oo ognahay gabadhii Soomaaliyeed ee iyada laftigeedu gabadhii uurka lahayd dhibaatadii loo geystay taa laftigeedu waxay arrin fool xun Tony Mayno dilka lagu hayo Soomaalida South Africa Tony Mayno waan diidnay arrinta waana ka soo horjeednaa walaalayaal arrintaas waa arrin fool xun waxaan isugu nimid inaan shucuurteena muujino waa waxa nala gudboon oo aan samayn karno dadkii yimid oo dhanna waa mahadsan yihiin oo ka soo qayb galay sidaad la socotaan arrintan waxaa abaabulay ururkeena ambareelada ah ee IFSAN waxaa la qoray batiisi ama warqad waxaa loo gudbiyey safaaradda South Africa Tony Mayno dilka lagu hayo Soomaalida South Africa diidnay Tony Mayno saaxiibtinimo idinka sugan hooyooyinka Soomaaliyeed dumarkeena sida u rufaadiseen aad iyo aad baan ugu gubanaynaa dhibkii way ka baxeen Tony Mayno South Africa safaaradda oo hadda aan ku hor banaanbaxayno waa loo gudbiyey batiisi ama warqad loogu sheegay in Soomaalida degan wadanka Holland arrintii foosha xumeed ee ka dhacday wadanka South Africa dhibaatadii loo geystay Soomaalida ugu dambeeyay wiilkii Soomaaliga ahaa in arrintaas aan ka soo horjeedno aanan diidanahay inay tahay arrin aad iyo aad u fool xun oo ka soo horjeeda bini'aadanimada oo ka soo horjeeda xuquuqul insaanka oo wax walba aan lagu cabiri karin arrintaas in la joojiyo Tony Mayno dawladda South Africa safaaraddeeda warqadda loogu dhiibay waa loo sheegay in dadka Soomaalida ah ee degan wadanka South Africa nabadgelyadooda inay mas'uul ka tahay dawladda South Africa safaaradduna fariintaas ay u gudbisay Tony Mayno fariin waxaan u diraynaa dawladda South Africa waxaan leenahay dadka Soomaalida ammaankooda waa inay sugtaa dadkaasi waxay degan yihiin wadankaas iyadaa ka mas'uula Tony Mayno dilka halaga daayo Soomaalida South Africa diidnay arrinta Tony Mayno dawladda Soomaaliyana waxaan u gudbinaynaa fariin kale oo aan leenahay dadka Soomaalida mas'uula idinka saaran meel walba ay ku sugan yihiin waxaan idinka codsanaynaa si xoog leh in dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan oo dhibaato ku soo gaaraysiin iska xil saartaan oo aad ku dadaashaan in dawladahaas kala la xiriirtaan oo nabadgelyadooda amnigooda iyo dadka Soomaalida xataa waa dad meesha ganacsi xoolo ku leh ma aha oo kaliya South Africa dawladuna arrintaas in iska xil saarto fariinaan u diraynaa Tony Mayno waa diidnay dilka lagu hayo Soomaalida South Africa laga daayo waa diidnay dilka lagu hayo Soomaalida South Africa Tony Mayno inkastoo walaalayaal maanta aysan ahayn in arrintaas in la sheego haddana waxaan ogaanaa annaga dadkeena Soomaalida ah walaalayaal oo dhibaatada lagu dhacaysi inaan annagu mas'uul ka nahay sababtoo ah annaga ayaa meeshaas dhignay in dadkeena meel walba dhibaato loogu geysto Tony Mayno Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha jirto ha joogto ha noolaato walaalayaal waxa muhiim
isku duubnida in la xoojiyo taas ayaa horumar lagu gaari karaa galabta maanta waxaan halkan u joognaa sidaan shucuurteena uga muujino dhibaatadii ka dhacday South Africa wiilkii walaalkeena ahaa ee Soomaaliga ahaa arintii ku dhacday marka shucuurteeni sida aan u muujino galabta waxaan la xiriirnay safaaradda South Africa ee waddankan Holland ana kulanay safiirkii iyo laba qof u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxayna naga qaabileen warqadii aan u geynay oo matalaysay shucuurtii dadkeeni Soomaaliyeed iyo sida xun ay u arkaan falkan ka dhacay arintan argagixiska ah South Africa marka way naga aqbaleen warbixintii iyo qoraalkii aan u gudbinay waxayna ballan ka qaadeen inay u gudbin doonaan dawladooda South Africa ee Pretoria halkaasna ay isla waqti dhow ay nagu siin doonaan warbixin iyo go'aamihii ay ka qaateen nagu soo wargelin doonaan marka taas ayaan idinka siinay warbixintii maanta iyo kulankii aan la kulanay safaaradda South Africa Soomaaliya waxay naga ballan qaadeen in dadkii oo walaalkeen dibka u geystay South Africa in la dabagalo dadkii oo dibka u geystay in oo la xukumo oo maxkamad la soo hor istaajiyo oo justice la gaaro Soomaaliya Soomaaliya Soomaaliya
usoo banaan baxeen waana aan garab taaganahay ummadda Soomaaliyeed ee joogtaba ay israaceen waxaas kale meel kusoo wada jeestaan banaanbaxana waxaan u arkaa in uu dhacay si wanaagsan oo sameeya u socdo waxaana halkan tagsi uga dirayaa in allaale intii waxaan kaloo oon dowladda Soomaaliya fariin u dirayaa waa inay jiifka ka kacdaa jiifka waa inay ka kacdaa waa in laga dhigiyaa dadka Soomaaliyeed oo lagu dilaya South Africa waana ka xunahay qoraxdan ayaan u taaganahay ilmahan ayaa guryaha ugu soo tagnay waxaan aad ugu xumahay dowladda South Africa amaalka ay u galay inay ilowday ayaan aad ugu xumahay dadka Soomaaliyeed ayaa dhulka lagu jeediyaa waay baro maxay ku dhacday South Africa xamaysan ogeyn ayagoo jiddi madaxda saxda Yurubay ayagoo waxba ogeyn annaga nolol noqonay annaga aqli u noqonay laakiin Soomaalina lama taqaanin Soomaali waa arsanaynaa dadana ku noolyahay xabashada صحيح مدونينا South Africa دولة Soomaaliya حسن شيخ محمود مدحوينينا فلانka wax ka qabo kuma soo noqonayno 20 sano Yurub joog kuma rimaanay dumarkeen haday dilayeen dowladda Afrikaanka ah oo waxaad ka qaban wayso aniga dhiguma hirgad meeshan oo nahay qaarajiyaan Tony Beyno bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan tacsiin u dirayaa dhammaan ehelkii ku geeriyooday wiilka South Africa lagu dilay hooyadii walaaladii ehelkii kale saaxiibadii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo insha Allah bismillaahi kariim halna waxaan odhanayaa Soomaaliyeed wanka waxaa la yiri ku quuso wanka gowra cindihiisa kor hawta ku qoostay waxa weeye waa u jeedaan waxa la inagu hayo inaan inagu marka tashano weeyaan oo iska dayno waxyaalaha aad ku mashquulsantiin waxa kaloo aan fariin u farayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa dhammaan dadka mas'uuliyiinta loo dhiibay inay arrintan ka hadlaan ka dhiidhiyaan sida aanu safaaradaha wax ugu dhiibaynay maanta Janiska inta uga faa'iideeyaan wiilkaasi waa tusaale waa lagu soo wada daba jiraa haddii aan laga dhiidhiyin marka inay maaragtay dowladdu ka dhiidhido insha Allah bismillaahi kariim assalaamu calaykum